أولا إله بما أسكال تبارك وتعالى وإذن بهذا علنا يا بهذا صحافة وحنروا بإذن الله تعالى ما أنت إن الشعب الصومالي دي باش عالم كإتباع لو ذاقه كرير أو قوان أو كساب سنمددي دارد أو شنطة بلاد هيد وأفضل كل إيهستي حقيقيا حنروا أولا نرتو إلى أمهد عليو لما شعب الصومالي المسؤولين تي صوماليين وكحماتي وحالي اللي ورد رقمي سيدي اللي وسوي بيش سيدي دا سوداني كود سنة كهرباء الماضي أنا بوصفرة ومقالة مقدشو قرونك آدنا عدة سفر ترانسيدا كوحة قواشد اللي قبتي دولة الفدرال كأه شعورتي أي كموجية شعب الصوماليات كارهان رجبلان دل يدودبا iyo مسؤولين بدن الصوماليات ولو ربنا سجارة أو مهد عليو مدحونها دولة بطلان ورالك سعيد عبد الله الدني يحل بان فقي ورنت قديد السجارة أو حلي أديت أو مهد عليو يعني أما المسؤولين الشعب انتبه ذاتك الصوماليات نفتي وحل ورد أغمي أنت سكدب أنواع عاصمة قباء الحمد لله وأديت بعض عاصمة قباء وحلبات أما قباء وحن كسونا هاي مجرد بلد حاوي قبل كجدو وحنرها إمت وأن جوجا مدة صدح مالنا وحنجعلها إن شاء الرحمن قبير وقوان وحاليه يسدي وحول عين والسيرة أذكر أما حقيقيا سيق أذكر بدل مدة شنت بلوضة هاي وحي عن صومري أما شخصيا وحي لا يقول رقمي انتبه وبرامج أباهن وقت دير يفرصدو فربدل لنا وذاك دون إن شاء الله تعالى شعب الصومالي مسؤولين تبين التوا يبش عالمك فلل فرحون حقيقيا أنا كون أكسنين دول لماذا الصومالي لماذا انتوا ولا يورد أغمي وحندرمي أما أن لعضي قوى شديدي البركة مقالة مقدشة اللي قبتي إن سيكر دون الله حظي لقينا لقي قف دنبيلة ودنبي الله يستوض الشعب اللي هبلو كان وحير نوع سكلته وحرب أنا حسوسي شعب الصوماليين قف كستوعد كي مغلها ينتبع شخصيا عبد الرشيد هان وحا مقدشة تجي قبل شديد الكهر بشي الحال واتني تدمن دي أنا كنت تجي مقالة كسماء عاصمة كملقاك جبلان وحاجرون كل شيء ويحلبانو يوسيرو دولة فدرال الصومالية كمدة وحان دقي حرمتها لمسودة قرنك الصومالية وحان جوغي لا بيش التضباط سديد دي وحان لكم من مدحونها دولة فدرال الصومالية مع عبد الله فرماجو مدن لو الجارة ولو مد وقت كمدة جانس أرض ودار أنا أسكوها لنا مدحونها وأن كوذا هل إن قد يدكو صلاة سنين أنت بدن دور الشوال لربي إنك كقبصنتو جبلان iyo aragtiyo kala duwana oo dawladda dhexe iyo Jubbaland u dhaxeeyay waxaan dhex deganaa taliska isa hore u sheegay in mas'uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay'adda saraakiishu u sareysay aan quranay muddo ayda nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan isla deganeen oo aan deganeen hotel oo aan deganaa guriga ku dhex yaalay xarunta hay'adda mas'uuliyadda waxaan ka soo tagay bishii toddobaad sidaan horeyba u yeelay sideedeedii waxaa dib leegu qabtay aniga oo safar xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii sideedaad Suudaan koodeed bishii toddobaad marka haaf kamid ah waxa isoo disle bishii toddobaad haaf kamid ah iyo bishii sideedaad oo Suudaan koodeed ay ku ekeed mareysay oo la qabtay miyaan dambiilo ku noqday mana ahayn marka hore dambiile madaxda qaranka la kulmay xarunta dawladda deganaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaan iyo qof kasto oo xaqiiqiyan arrimaha Soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dambi ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midna aan ka galay inaysan ahayn inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan ku kala aragti duwanay sidii wax u rabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidii shacabka reer Jubbaland dantooda iyo maslaxadooda ahaado ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday 22 bishii sideedaad oo Suudaan koodeed la qabtay waxaa marka qof kasto bil aadan u fahmi karaa ama Soomaaliyeed ama rabaa inaan xaqiijiyo shakhsiyan in dambiile ah ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dambi ka galay ma ahayn maxaa sida waxa barnaamijka kismaayo ka dhacay
sida u dhacay kuma aan qanacsaneyn buu ahaa wixii muddada 5 bilood ah lagu hayay hal ay hayo dhima lahaan siyaasad ragoo lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska iman karo laakiin waxa haddana nasiib darro ahayd muddada 5 bilood ah inaan xarun dawladeed arag laguna xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ay ku xirnaayeen waxaa maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakaara dad Soomaaliyeed hantidooda oo ku dhintay oo afduuba guryo loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin baa maqli jiray xilligii baa dhici jirtay taasaa dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa markii soo baxday in aanay markii la qabtay aan igeynin wax xarun dawladeed ah hal maalin guryo madaxda dawladdu ay sitigi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo Soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaalo dawladdu aysan kontroolin baa usbuuciyaba guri la igeynayo la igu hayay ma garan karo waxa la igu wareejinayay dabcan guryo xaafada xamar ku yaalo oo inta badan waliba kamid ahaa guri lagu hayo inta badan xaafada Hurwaaba ahayd kolba maalba guri in la igeeyo waxa maxkamadda igeeyay si shacabka Soomaaliyeed loogu qanciyay inaan dambi leeyahay bish sagaalaad 6deedii markaan 36 casho xirnaa kadib bish 16deedii 36 casho markaan xirnaa kadib waxa la igeeyay guri waxa la igeeyay maxkamad gobolka Banaadir waxa cajiib ahayd eedo waxaa jirtay 2015 barnaamijka sidaad ku saleysnaa inta badan oo la ii soo jeediyay eedeyntaas horey la igu soo jeediyay waxay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta qaranka way xireen bishii afraad 30keedii sida inta badan ummadda Soomaaliyeed ay arkeen oo fayl dacwadeedkaas ay xireen ay xirtay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta intaba waxa cajiib ahayd in isla gudoomiyihii gobolka maxkamadda gobolka Banaadir oo bishii afraad warqadda qoray isla asagii anigoo la igu eedeynay isla barnaamijka asaga ah la igeeyo oo gudoomiyihii naftiisa u yaabo cid ay ka timid in warqadaas la qoro barnaamijkaas barnaamij siyaasadeed ahaan uu ahaa madaxda dalka u sareyso oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas la iga qoray shalay ay gardarre ahayd barnaamij siyaasadeed uu ahaa dulmi uu ahaa maxkamadduna ay xirtaan gaal dacwadeedkaas wixii ka dambeeyay xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo lawyer waxaan si darro ahayd in la diiday lawyerkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yiri ninkan kiiskiisa barnaamij aad xalin aad ka noqon kartid qareen ma ahan iskaga tag oo ku qanciyo ummadii qabatay aniga inta badan xiriir waa la diiday oo ehelada ila ahayd dib ugu soo noqdo lawyerkii oo uu yiraahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamad lagu xalin karo siyaasad baa lagu xalin karaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninka sargaalka sare ahayo journalka ahayo ka tirsanaa asluubta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ilaa aniga bilkulliyanba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay station dawladeed xabsi ku yaalo ama xabsi dhaxo dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midna inaan arag waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo wareegin wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yar oo kooban oo taliyaha nabsuudda qaranka Fahad Yaasiin kullane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyay aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadii naasabadan ay ku burburtay in baaqaaraad badan oo kamid ah ayuu ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warqabay wuxuu ahaa Saadiq Joon oo ah General Saadiq Joon oo ah taliyihii qaybta gobolka Banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan u wareeyay wasaaraha dalka Soomaaliya lugna inuu soo kulahayn ummadda Soomaaliyeed rabaa inuu xaqiijiyo inuu soo lugna kulahayn
dhibaatayntii shantaas bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax la haysta midna uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd falilahi alxamdu walmanna barnaamijka isaga ahaa waan ka soo gudbay waxaana ii suurta gashay waddo kastoo isticmaalayba inaan maanta xorriyad ahay joogo deegaanada Jubbaland degmo ka mid ah ku suganahay Buulaxaawo dhex jooga ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo arkahayay waxaan kaloo dareemayay tariikhayka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sakiya hawareertay way aniga ma gabar hawareertay waayo marba inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo labada jeer idaacada ay ka hadashayba marna axwaashiida kama soo warqabin markasto waxaan rabaa in aan telefoon loo soo diray ama loo yeero u tagto dadka systemkaas gacanta ku hayay loo diray in idaacada ka hadasho laakiin aysan ka warqabin system aan ku xiranahay iyo meel aan ku xiranahay iyo wax lagu haysto midna awrinta markuu cudur daaraya dhimale biidinilaahi tacaala marba inaan ku fogaado dabcan intaas markaan ka soo gudbo waxaan aad uga xumahay waxa maanta ka jiro gobolka qayb ka mid ah gaar ahaan degmooyinka Buulaxaawo Doolow iyo Buulaxaawo iyo Luuq markii koonfurta Soomaaliya oo dhan ay argagixisadu qabsatay 2008 waxaan maleynayaa Doolow ay ahayd degmada kaliya ah koonfurta Soomaaliya ku taalo oo shabaab ka badbaaday waxaan dib ugu abaabulnay ciidamo Soomaaliyeed oo dawladda TFG ama dawladda kumeelgaarka Soomaaliyeed ka mid ah hoos yimaado ciidamo qaran ah ciidamo dawladeed ah waxay ciidamadaas xoreeyeen Buulaxaawo bishii 3 shanteedii aan Buulaxaawo qabanay bacda shida oo tacab dagaal aad u fara badan iyo caqabado fara badan oo soo maray kadib magaalada dib waxa loo qabtay shantii bishii 3 2011 luuqna waxaan qabanay 7 bisha kadib Garbaharey ay ciidamadaas qabteen oo caasimadii gobolka ah ama xaruntii gobolka ah waxay ku sugnaayeen muddo badan weeraro badan iyo dagaalo badan oo hujuum ah oo cadawgu ku sameeyeen oo iska difaaceen waxa koonfurta Soomaaliya ognahay 3 magaalo isku furan oo shacab iyo mas'uulba si nabad loo mari karo waxa ka jiro Buulaxaawo Doolow iyo Luuq oo gaadiid intii loo kala raaco cabsi la'aan lagu maraayo jidkeeda intii ayadoo nabad ahayd maanta inay dawladdu nabadda ka qaado oo mas'uuliyiinta dawladda u sareeyay ay ku fikiraan in shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ka dhex shaqeynayay oo ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dawladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo intaasna xaqiiqiyan waa arrin aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyadeeda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglageliyo oo dhibaato intaan la eglagu sameeyo iyadoo waxa la dirahay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiyan aad guul darro ah waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa muddadii aan joogay Muqdisho oo koobneyd oo aan horey uga hadlay oo madaxweynaha dalka dowladda federaalka Soomaaliya aan kulanay muddada 2 jeer ah muddada dheerna aan kulanay waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed muddada yarkeed hadda usbuuca ka yar oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2011 la xoreeyay oo cadawga laga fogeeyay oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada Luuq oo kale akaaro oo xarada ciidanka ay ka shaqeyso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeedii in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay rag ilaalinayay oo yaqaanay oo cadawga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkii wax ku ilaalinayeen oo dhan baa meesha laga saaray Doolow oo amniga ugu badan uu ka jiray gobolkana dhimasho iyo dhaawac waa ka dhacay waxaa dhacday Buulaxaawo in shacabka Soomaaliyeed xarurtooda cashooyinka u karsanayeen digsiyadii in dabka lagala daway askaro cunto waxay ku noolaayeenna ama Buulaxaawo amniga ay haysteen iyo Luuq iyo Doolowna oo damayn sanadii hadda ugu dambeeyay waxaan filayaa mid ay marqaati ka tahay beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo bulshada Soomaaliyeed ku nool intaba
waxay ahayd mid marqaati madoonta ah oo qof kasta Soomaaliyeed uu og yahay amniga ka jira degmooyinkaas xarunta shacabka iyaga tira badan iyo dhib badan ma soo marnay waxaa joogay ciidan akhlaaqiyan aad u wanaagsan ciidan Soomaaliyeed ah waxyaalaha xataa muqaadaraadka ah oo inta badan askarta Soomaaliyeed isticmaasho aysan dhici karin askari barnaamijka isticmaalayo uu ku dhex noolaado ciidamadaas waxaa dhacdo waxyaalaha hadda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinkan ka dhex dhacay kamid ah maqaayadda cuntada lagu karinayo intii la soo galin la yiraahdo xashish iiba ma haysa khamri iiba ma haysa ayadoo biyo lagu dari jiray arki jiray ayadoo saaka aan maanta haysanaa la isku bishaareeyo oo qoryo askari qori jiidahay oo magaalo dhex marahay oo qoriga intuu gafoor ka qabtay dhulka ku jiiday wallahi waa wax nasiib darro oo aad looga xumaado waxaana barnaamijkaas ayada mas'uuliyadda qaadi doono madaxda dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ku fikirtay arrintaas ayada ah waxaana rabnaa in aan xaqiijiyo in aan shacabkayga ku fiirsanin dhibaato wadaxaawo لو تكون كويت وين كمان كان قبلين waxay magaalo ay go'aan sideen shabaabku inay difaacdaan madaxda shabaabku dhan isku timid waxaan qaadanay waxa aan ku noolno shacabkii uu ku nool yahay inaan u adkeysan karin markaan xoreyntaas gobolka sameeynay waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inaan marnana u dul qaadanaynin waxa ka dhacay systemkan waxa in odaya laga sheegay sarhayo nin dilayo muxib hadii shalay shabaab cadow ahaayeen oo shacabka Soomaaliyeed inaan kala tacaalno aan go'aan sarnay hadii cadow ka duwan oo la mid ah shacabka Soomaaliyeed lagu sii daayo oo dhibaateynayo oo mas'uuliyiintu ahayn marnana ma aqbaleen in jiritaanka anaga iyo dawladnimadanada iyo waxaan ku saleysanahay in lagu ciyaaro midnimo una xaqiijin rabaa in aad baan waxaan uga xumahay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo cadowgoodu uu banaanka taagan yahay oo dalkii uu amni darro ka jirto oo cadow shabaab leeyahay uu haysto in maanta ayk dib la iskugu laayo aad iyo aad arnaan oo xumahay waxa kale oo nasiib darro ah magaalada Muqdisho aan ku xirnaa 5 bilood oo aan afduubka lagu haystay maalin aysan dhibaato ka dhicin oo aan qof lagu dilin ama bisoolada lagu dilo ama bomba meelaha lagu tuuro ama qarax ka dhaco oo sidii kii hadda ex control ka dhaco kala shacab Soomaaliyeed oo fara badan iyo dad ummadda Soomaaliyeed dawladda kale oo nakalkaalay inta wax lagu laayay waxa xaqiiqo ah in amniga magaalada Muqdisho uu ziir ah ummadda Soomaaliyeedna ay wada fahmayso og tahay oo Muqdisho iyo afgooyo 30 kiiloomitir dawladda ay control lahayd 30 kiiloomitir afgooyo iska daa Muqdisho gudaheeda dawladda ay control lahayd hal jid oo kala xiran oo qof mas'uul ah qof aan ahayn uu soo mari karin 24 saac ay dhibaato ka dhacdo gobollo iyo degmooyin nabad ahna amniga laga qaado barnaamijkan la sameeyo taasna waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba waxyaalaha dhacahayo oo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliyeed oo hadda dalka madaxda ka ah ay ku fikirayaan waxaan rabnaa 2020 inaan gaarno qof naga aragti duwan oo aan jirin baan rabnaa taasina dal lagu dhisay dawladna lagu ahaanin aad iyo aad baa maasantiin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo inaan la wadaagi doono min bidaaya ilaa nihaaya ama dhamaad ilaa bilow 5 bilood wixii la ugu dhaqmay aad iyo aad baa maasantiin iyo qadiyada aan ku xirnaa inta